بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد حلقة ديني لبي تبنى بوغينا نويا قانون ميجا بوك of modern English grammar. أوكي، وحكا بلا مية حلقة ديني لبي تبنى بوغا لبي لباتن halka ay ku qoran tahay 31.4 halkay ku qoran tahay oo ku some words erayada qaarkood can be used waxa loo isticmaali karaa some words erayada qaarkood can be used waxa loo isticmaali karaa both labadaba as adjectives foin and adverbs iyo falkaabayaal maxaa kamid ah kuwaas high sare low hoos near dhow fast dheeraynaya half macnaha nus oo nus deep waa dheer far fog hard adag late goor dambe much badan long dheer leisurely firaaqo leh kindly naxariis leh early goor hore daily maalin walba weekly waa week kasta okay fortnightly waxa weeyaan laba usbuuc leh ama 14 maalmood yearly sanawi straight oo qumaati hourly saacad kasta nightly habeen walba only kaliya a little wax yar iyo enough degrees waxa weeyaan darajooyinka of comparison iskarabdhiga like adjectives sida sifooyinka oo kale some adverbs falkaabayaasha qaarkood also sidoo kale waxay yeelanayaan comparative and superlative forms habab comparative iyo qaar superlative ay yeelanayaan aan laba shay iskarabdhigaya ama in ka badan ka number 1 adverbs falkaabayaasha of one syllable halka laxan leh form waxay ku qaabaynayaan comparatives mana markii laba shay la iskarabdhigayo by adding iyadoo lagu daro and superlative kana by adding est lagu daro maxaa kamid ah hard waa adag si adag harder si ka adag harder si adag high waa sare higher ka sareeya highest low waa hoose lower ka hoose lowest deep waa hoos u dheer deeper ka dheer deepest near waa dhow nearer ka dhow ama si ka dhow nearest okay fast waa dheeraynaya faster ka dheeraynaya fastest late waa aakhir ama habsaamay later ka dambeeya latest soon waa si dhaqsa sooner ka dhaqsa badan soonest early waa goor hore earlier ka horeysa earliest nowd waa fiiro gaara early kelmad la yiraahdo word waa eray of two syllables laba laxan leh but laakiin if it forms waxay ku qaabaynaysaa ama ay ku abuuraysaa statistics darajooyinkeeda of comparison iskarabdhiga by using I isticmaalayna instead of y halkii wayda and adding dabeedna ku darayna er in comparative ka and est na ku darayna in superlative degree darajada ugu sareysa b da qaybta labaad adverbs falkaabayaasha ama yani darafka of two laba or more syllables ama laba laxan iyo wixii ka badan form waxay ku qaabaynayaan comparatives labada shay marka la iskarab dhigayo by using iyadoo la isticmaalo more and superlative kana by using iyadoo la isticmaalo most before the adverb falkaaba hortiisa foolishly waa doqonnimo leh more foolishly si ka doqonnimo badan most foolishly sidii ugu lidatay slowly waa tartiiba more slowly ka tartiiba most slowly clearly waa waadaxa more clearly yani si ka waadaxsan most clearly wisely waa si xigmad badan more wisely ka xigmad badan most wisely quickly waa si dhaqsaa more quickly si ka dhaqsada most quickly okay beautifully si qurux badan more beautifully si ka qurux badan most beautifully harshly waa si adag oo qalafsan more harshly iyo most harshly waa gladly waa si farxad ku dheehan tahay more gladly ka farxad badan most gladly okay way wuxuu yiri sincerely si mukhlisnimo ah ama daacadnimo more sincerely iyo most sincerely helpfully si kaalmo badan more helpfully ka kaalmo badan iyo most helpfully faithfully waa si daacadnimo ah more faithfully si ka daacad badan iyo most faithfully okay sorrowfully waa murugo badan more sorrowfully ka murugo badan iyo most sorrowfully macnaha ugu murugo badan way siida wax ku some adverbs qaarkood having oo yeelanaya irregular forms habab aan caadi ahayn xeerarka raacin midnaba well oo kale maxaa kamida well mesela waxa weeyaan better iyo best il ama badly oo kale markay tahay xun ama yani liita waa worse ka liita worst ugu liita little waa yar less ka yar least ugu yar
late waa goordama later ka dambeeyay last ugu dambeeyay much waa more iyo most far waa fog farther ama further iyo farthest iyo furthest oo isku macnaa wuxuu ku yiri markaas for negative meaning haddii macnaa negative aynu ka dhigayno less kelmad la is used before ayaa la hordhigayaa comparatives and leastna waxaa la hordhigayaa before superlative korteeda clearly waa si waadaxa less clearly si aan yani ka hooseysataa iyo least clearly tii ugu liidatay wisely waa si xikmad badan less wisely macnaa si ka liidato ka xikmad yar iyo least wisely ugu xikmad yar okay forcefully si quwad leh less forcefully si ka hooseysa iyo least forcefully painfully waa si xanuun badan less painfully si ka xanuun yar iyo least painfully okay hopefully waa rajo badan less hopefully ka rajo yar iyo least hopefully ugu rajo yar degree of comparison darajada miisaanka waa usage isticmaalkooda wuxuu yiri positive degree macnaa darajada positive-ka in affirmative sentences waraha affirmative-ka ijaabiga ee aan negative ahayn su'aalna ahayn we use waxaan isticmaalnaa as and in negative sentences waxaan isticmaalaynaa as ama so as okay maxaan oran karnaa he drove as carefully as he could he drove baabuurkii wuxuu u dhaqaajiyay as carefully si ka taxadir badan as he could siduu karayay you didn't work much shaqayn so hard as he did macnaa si u adag sidii uu sameeyey isaguba qaybta bida comparative degree-ga we use waxaan isticmaalnaa dan kelmadda dan la yidhaahdo here halkan we reached the station maxadadii baanu gaadhnay earlier goor hore than they did sida ay sameeyeen marka la garab dhigo okay our new teacher macalinkayaga cusub speaks wuxuu u hadlaa more clearly si ka waadax badan than our previous teacher macalinkayagii hore previous teacherkii macalinkayagii hore wuxuu ku yiri superlative degree darajada ugu sareysa here halkan we use waxaan isticmaalnaa the superlative degree noun baynu isticmaalaynaa or pronoun ama magaciyaal maxaynu odhanaa masalan George Nicholas Ford wuxuu u dagaalamay best of all macnaa sidii ugu fiicnayd ee soldiers-ka dhammu dagaalameen I like football kubadda cagtaan jecelay most of all gabi ahaan marka la isku daro where meesha the comparison macnaa waxa la iskarab dhigaya is clear uu cadaanka yahay of all can be dropped kelmadda of all la yidhaahdo can be dropped waa la iska ilaabi karaa waxaan oran karnaa George Nicholas Ford wuxuu u dagaalamay best sida ugu fiican I like football most kubadda cagta ayaan ugu jecelahay okay isaga caynka inale inaga maaha kuwa jeceli waa isaga ka qoray buuga position waa maxalka ay dhacayaan of adverbs falkaabo in sentence jumlad could adverbs of manner adverbs ka manner ka ama kayfiyada sheegaya are usually alaba place after waxa la daba dhigaya the intransitive verb ficilka laazimka ee aan mutaaddiga ahayn and after waxa la daba dhigaya oo kale the direct object mafcuulka tooska in case bilaaba hadii uu meesha ku jiro of a transitive verb ficil mutaaddi laakiin ficilkii laazimka dabadeed way dhacaysaa maxaa la oranayaa all mean ragga ajuusyada gaboobay walk waxay u socdaan slowly si tartiiba marka walk waa intransitive verb slowly waa adverb she sang waxa way stay beautifully si macaan taasina waa yani intransitive verb she copied the answer jawaabtii waxay u copy gareysay correctly si saxa he slapped uu dharbaaxay her the hard si baan but laakiin exclamatory sentences waraha exclamation ku jiro with how wata with how kelmadda la yiraahdo how wata the adverb macnaa falkaabaha isbud waxa la dhigay after how dabadeed مثلا maxaynu oran karnaa how well she looks alla qurux badana how beautifully is she dressed alla labis fiicana how badly he plays huma siduu u ciyaara maxaa ka ciyaar xun sometimes marka qaarkood when we wish markaynu rabno to emphasize inaynu akidna the action hawsha ama ficilka la qabanayo we place waxaynu dhigaynaa the adverb of manner darf kayfiya sheegaya not after ma dhigayna xagga ka dambaysa but laakiin waxaynu dhigaynaa before the verb falkorti all of them quickly came out of the burning house wuxuu yiri all of them dhammaantood quickly came out dhaqsay uga soo baxeen of the burning house gurigii gubanayay
The thief tuugii hurriedly put the necklace wuxuu ku qarsaday macnaha silsiladii uu soo xaday in his pocket jeebkiisa and ran away dabadna uu fakaday. The guest ninkii martida suddenly si lama filaana disappeared uu qarsoomay. The plane diyaaradda suddenly si lama filaana caught fire dab qabsaday. But the adverb laakiin adverbka badly la yidhaahdaa never abidkeed comes before ma hor dhacayso the verb ficilka except ilaa laakiin waxay hor dhacdaa in passive marka uu yahay falku majhuul ama yacni ficilku majhuul yahay. He acted badly si xun buu macaamilay. He hurt himself naftiisi buu waxyeelay badly si xun iyo he was badly hurt si xun baa wax loo yeelay. taa ugu dambaysa waa passivekii. Adverbs of place wuxuu kuri these adverbs falkaabayaashan are usually alaba placed after waxaa la daba dhigayaa the verb ficilka if it is hadduu falkaasi yahay transitive mid mutacadiya transitive and after the direct object ama waxay daba dhacayaan mafcuulka tooska if the verb haddii falku is intransitive inkastoo magnasa intransitive-ku aanu qaadan verb halkaas waa we live here macnaha halkan aan ku noolnahay. If the verb is intransitive haddii falku intransitive yahay macnaha falka intransitive-ka bay daba dhacayaa yacni adverbka place-ku laakiin haddii falku transitive yahay adverbku wuxuu daba dhacayaa objectka directiga taasaa saxa. Okay, we live here halkan deganahay. Poor people dadka masaakiintii sleep way seexdaan anywhere meel la arko. I met her waxaan iyada kula kulmay deer halka. My father abahay is in his library maktabadiisii ku jira. George ninka la met wuxuu qaabilay his girlfriend inantii saaxiibka in the back seeraha. Okay, if the sentence haddii weedhu has a letter an adverb of manner adverb manner ama kayfiye sheegaya state xaalada satraya wixii lamida. Also sidoo kale the adverb of place mana adverbka placeka sheegaya ayaa comes after it daba dhacaya. He sang wuxuu heesay beautifully si macaan buu uga heesay at the function hawshii socotay. Ka beautifully kelmadda la yidhaahdaa waa adverb of manner. At the function waxa weeyaan meeshuu ku heesay waa adverb of place. She drove slowly tartiib bay u martay on the main road wadadii weyneyd. Marka adverb of mannerki waa slowly on the main roadna waa phrase-ka muujinaya adverb of place. When marka darar ay jiraan two laba or more adverbs ama adverb captain of place oo meel sheegaya the smaller place meesha labada yar ayaa is mentioned la xusaya first awal marra. Okay, I live waxaan degan in a small village xaafad yar near Delhi oo Delhi u dhow. Marka near small village iyo Delhi waa laba. Okay, we have a cottage cariish baanu ku leenahay near the lake harada agteeda. kaasina waa adverbs of place-kii bal anu gudubno marka adverb of time-ka. These adverbs falkaabayaashan are usually alaaba mana kuwa time-ka sheegaya ama darfu samaanka are usually placed waxa la dhigaa the end dhamaadka of a clause jumlada or a sentence ama jumlada mufiidka ama taqriir mufiidka dabadeed. She wrote to me shalay bay ii soo qortay. She wrote to me yesterday shalay waraaqii soo dirtay. The plane diyaaraddu arrives waxay timaadaa 4 p.m. We reached waanu gaadhnay the theatre just on time xilligii loo baahnaa. But laakiin for emphasis litawkiid haddii la adkeynaya hawsha these adverbs falkaabayaashani can occupy waxay qaban karaan ama buuxin karaanba the front position maxalka ugu horeeya. oo waxaan oran karnaa yesterday shalay we celebrated waxaanu u dabaaldegnay our marriage anniversary sanad guuradii kasoo wareegtay guurkayga ama aqalgalkayagii. Okay, wuxuu ku yidhi okay to dawn ninka la yidhaahdaa today maanta he is chiefly used it is chiefly used. Okay, sorry, today maanta he is in London buu joogaa. Tomorrow bartona he will be flying to Paris buu duuli doonaa. Use of yet kelmadda yet la marka la isticmaalayo it is chiefly used inta badan waxaa lagu isticmaalaa in negative constructions tarkiibta negative-ka ama not ay ku jirto. The normal position maxalka lagu yaqaana ama meesha ay degaysaana is at the end waa dhamaadka. It is night waa habeen and father hasn't come home yet. Aabana weli ma iman. The office mana office-kii isn't open ma furna yet weli. Haven't the boys gone inamadii maana tegin to the college kulliyadii yet weli. Use of still kelmadda is still idhaayo isku macna yihiin laakiin tani waxay is usually placed waxa la hor dhigayaa still kelmadda is usually placed waxa la dhigayaa before the verb falka hortii. Maana she is married mana waxaas bay leedahay
but she still takes dancing lessons. لكن هذا waxay qaadataa 10 daanis raqasa. I still like her wali waan jecelahay. But still laakiin kelmadda still comes after the verb falkay daba dhacaysa falka to be laakiin falku ha ahaado verb to be gi. But laakiin still kelmadda la comes after waxay daba dhacaysa the verb to be falka be la yiraahdo. He is still a clerk wali waa karani. They are still unhappy wali waa qadbaanin yani qaar murugaysan. The road wadadu is still closed wali way xiran tahay. Order waa tartiibta of adverbs of time siday u kala horeynayaan order tartiibta of adverbs of time darfu zamaanka. When marka two laba or ama more adverbs in ka badan of time waqti sheegaya are used la isticmaalada adverb ana adverbka denoting tusaya particular time mana xilliga muayinka ama khaaska ayaa comes before hor dhacaya the more general expression of time yani ta sida caamka wuxuu sheegaysa waxa loo she was born waxay dhalatay at 5 am mana shantii subaxnimo on 20th of July 20keedii 1942. Okay, when marka a sentence jumlada contains ay ku jiraan adverbs mana falkaabyal of more than one kind hal nooc in ka badana the normal order tartiibta caadigii is waxa weeye adverbs of minor kuwaas minor ka ugu horeynaya place ka ku xiga time ka ugu dambeynaya waxaan oranaa markaas she danced merrily at the party yesterday. She danced waxay uga ciyaartay merrily si farxad ku dheehan tahay at the party xafladii yesterday shalay ana waxay uga heestay si aad iyo aad u macaan buu leeyahay si aad u macaan ayuu leeyahay marka waxa ugu dambeynaysa adverb of time ka ayaa ugu dambeynaya sida lagu muujinayo table-ka 63 adverbs and adverbial phrases of time kuna waa kuwa waqtiga sheegayay مثلا waxaan oran karnaa I will see him waxaan arki doonaa tomorrow baritole ama the day after tomorrow yani maalinta bari ka dambaysa waa saa dambe ama now oo kale I'll see him waxaan la kulmi doonaa this Sunday axadan ama this weekend ama this month bishan etc wixlamda ama I will see him waxaan arki doonaa this November bishan November soo socota ama this December ama this winter etc ama next Tuesday salaasada soo socota ama next Wednesday arbacada soo socota ama next week soo socdan month bisha soo socota next year sanadka soo socda etc wixii lamida ama horan kartaa next March ama next April etc ama next winter jilaalka soo socda etc wixii lamida okay wuxuu ama waxaad oran kartaa I will see him waxaan arki doonaa the following day maalinta soo socota ama morning subaxda ama evening galabnimada ama night habeenka ama weeka ama month bisha ama year sanadka etc wixii lamida ama the following August bisha August soo socota ama September soo socota etc wixii lamida ama the following winter jilaalka soo socda etc wixii lamida okay I saw him waxaan arkay maxaan oran markaas today maanta I saw him waxaan arkay today maanta ama I saw him yesterday baan arkay ama I saw waxaan arkay the day before yesterday daraatole ama I saw him waxaan arkay this morning saaka ama evening galabtii maanta etc ama this weekend ama this month bishan baan arkay ama this year sanadkan ama waxaad oran kartaa I saw him waxaan arkay this August bishan August ama this September etc wixii lamida ama this winter okay I saw him waxaan arkay last night habeen hore ama last Wednesday arbacadii hore ama last Thursday khamiistii hore etc wixii lamida ama I saw him waxaan arkay last weekii hore last month bishii hore last year sanadkii hore ama last March bishii March ayna dhaaftay ama April bishii April etc wixii lamida ama waxaan ku tahay I saw him waxaan arkay last winter jilaalkii hore etc wixii lamida ama I saw him waxaan arkay yesterday shalay mornings in the morning subaxnimadii ama in the evening galabnimadii ama in the afternoon casarnimadii ama in the afternoon casarnimadii okay kuwan waxaan some adverbial phrases waa phrase adverb of time oo waqti sheegay with a go oo kelmadda ago la yiraahdo tagitaankina ay la socoto he came to see me wuxuu soo eegay long ago beri hore ama I met her waxaan la kulmay a moment ago laxdadii ina dhaaftay ama ilbiriqsigii ina dhaafay ama a minute ago daqiiqadii ama an hour ago saacadii ina dhaaftay ama a week ago weekii ina dhaafay ama a fortnight ago 14 maalmood tagay ama a month ago bishii tagtay ama a year ago ama waxaad oran kartaa okay he came to see me wuxuu soo eegay a few moments ago waxaan yani dhowr daqiiqo ka hor ama 2-3 minutes ago
ama several minutes ago ama several hours ama several weeks ama several months dhowr bilood ama several years. intaas hadaynu kaga gudubno kuwaas aynu gudubno marka adverbs of frequency kuwii sheegaya soo noqnoqoshada. adverbs waa falkaabayaasha ama darafka of frequency. these adverbs falkaabayaashani usually alaaba come after waxay daba dhacaan the verb to be falka be la way daba dhacaan. she is always late for the class. tusaale ahaan she is iyadu always markasta late way ka daahdaa for the class fasalka. he is isagu actually xaqiiqatan ama yani usually alaaba unwell ma faya qabo. in simple tennis forms mana qaababka tenniska ama waqtiga ee ficilka of all other verbs ay dhammaan ficilada kale the adverbs of frequency adverbida sheegaya frequency-gu come before waxay hor dhaceen the verbs afcaasha. boys always make more noise than girls. boys namadu always mar la arko make waxay sameeyaan more noise buuq ka badan than girls habla. my grandfather awogay hardly ever falls ill. abidkii ma bukoodo yani waa naadir inta bukooda. she sometimes iyad markaa goes to her home gurigeeday tagtaa yani goes waxay aadaa to her hometown halkay u dhalatay. we occasionally anagu marmar meet waxaanu kulanaa on Sundays axada. I never have dinner ma casheeyo before 9 o'clock sagaalka ka hor. he seldom smoked yani naadir buu cabay before his father ka hor aabihi. my brother walkay rarely goes to the cinema naadir buu tagaa sinimooga. I often saw him waxaan ku arki jiray in the evenings galbaha. but laakiin if there is haddii uu jiraan auxiliary verb fal auxiliary oo musaacida in the sentence jumlada the adverb falkaabuhu is placed between waxa la dhex dhigaya haddii laba ficil meeshii ku jiraan weeye oo midna auxiliary iyo midna main verb yahay ka labadii ficil kii mainka iyo kii auxiliary uu dhex dhacaya weeye. the adverb falkaaba is placed between waxa la dhex dhigaya the auxiliary verb or ama the modal auxiliary and iyo halka u dhaxaysa the main verb ficilka weyn ee meesha ku jira. okay sida ka muuqata tableka 65 adverbial phrases of time with prepositions or wata prepositions. we will meet them waxaynu qaabili doonaa on Tuesday ama on Wednesday etc. iyo wixii lamida in the morning subaxnimadii in the evening galabnimadii in the afternoon casarnimadii at night habeenkii. ama waxaynu odhan karnaa I will be free before the 3rd ama 4th etc. of October November etc. ama after ama by 5 o'clock oo kale ama at 5 o'clock ama at noon duhurkii ama before midday maalin barka ka hor ama before night habeenka ka hor ama after Christmas ciida kristaanka kadib inagu dee ciida muslimkeenu ciidna laakiin ciid kristaan ma ciidno ama Easterka tadabadeeda ama by Easter ciida Easter oo sanadka cusub markay u dabaaldegeen gaaladu. okay I will be free waxaan fasax noqon doonaa in September baad odhan kartaa ama in October etc. ama I will be free waxaan fasaxaan doonaa during winter inta lagu jiro winterka ama jilaalka ama during summer inta xaga lagu jiro etc. wax lamida. okay I will be free waxaan fasaxaan doonaa during the morning inta lagu jiro subaxda ama during the evening. we will finish the work hawsha waxaan u dhamayn doonaa a few minutes ama a few hours ama a few days time dhowr maalmood gudahood dhowr saacadood gudahood dhowr daqiiqo gudahood. ama okay we will finish waxaan u dhamayn doonaa the work hawsha half an hour's time macnaha waqti nus saaca ama an hour's time hal saac ama a few several hours time waqti dhowr saacadood ama hal saaca ama 5-6 etc. days time 5-6 maalmood ama 5-6 weeks time 6 week ama 5 week meelahaas. in interrogative sentences waraha interrogative-ka ama su'aalo ku jiraan adverbs of frequency adverbada frequency-ga are placed waxa la dhigayaa immediately after the subject faacilka dabadoodun. maxaa loo markaa he has generally kept his word hadii jeer uu iska aamus jiray. she can always make such a stupid mistake. she can always make markasta way abuuri kartaa such a stupid mistake qaladka nooca u nacasnimada. you must regularly take exercise inta badan waa inaad qaadataa jimicsi. have you ever visited weligaa ma booqatay a museum madxaf ama guriga hidaaya ee dhaqanka. I shall never forget my life doono your kindness naxariistaadii. he has often helped me wuu igu saacidi jiray had iyo jeer with money lacag. I will sometimes come waan iman doonaa
I see you on kusoo booqan. You should occasionally waa inaad marmar go to your doctor dhakhtarka u tagtaa for a check-up yani inaad isbaadho. They have seldom paid back the money in time. They have seldom macnaha wax yaroo naadiray paid back dib ugu soo celin jireen the money lacagta in time xilligii loo baahnaa. My brother okay doesn't usually come home late guriga goortama ma yimaado alaaba. Elias gabadh la dhahaa has rarely failed to win yani naadir bay dhacday inay ku guulaysato a medal yani bilad in school games ciyaaraha iskuulka. Okay will he ever learn to behave better talow dhaqankiisu abid ma isbedeli doonaa. Okay waayahay must you always talk so loudly markasta kor baad u hadlaysaa. Does he often get so angry miyuu cadhooda had iyo jeer. Okay if the sentence haddii jumlada contains ay ku jiraan two auxiliaries macnaha laba auxiliary haddii isku jiraan the adverb of frequency adverbka frequency-ga ama tikraarka iyo imraarka sheegaya is placed waxaa la dhigayaa after the first auxiliary auxiliary-ga hore xagga ka dambaysa bal hadda tusaalahan u fiirso. Okay tusaalaha soo socda markaad eegto I could never have passed weligii ma baasi kareen without your help kaalmadaad laanteed. Floods dadku have sometimes been caused waxa macnaha cause gareyn jiray by carelessness yani feejigalaan. He has seldom been beaten in tennis macnaha naadir baa laga badin jiray tennista. You have often been told to dress properly naadir ayaa lagu sheegi jiray macnaha inaad u labisato si saxa. The poor have always been exploited by the rich. The poor dadka fuqarada have always been exploited waxaa dhigmiiran jiray had iyo jeer oo ka faa'iidan jiray macnaha xoogooda ama aqoontooda ama muruqooda by the rich dadka qaniyada ah. waa sida maanta ka taagan Hargeysa. Haven't you been taught miyaan lagu barin to write your own answers inaad jawaabtaada qorto. Have your paintings miyay sawir gacmeedadaadii ever been shown outside the country lagu muujiyey meel ka baxsan dalka. Okay adverbs of frequency adverbska frequency with a wata have to kelmad la oo macnaha sheegaysa obligation iyo used to oo sheegaysa caado laga soo tagay. My father abahay okay wuxuu my father abahay sometimes had to work in the night shift waxa inuu habeenka qaybta habeenka shaqeeyo. Okay I often have to cook my own lunch waxa ila gudboon inta badan inaan karsado cuntadayda. Air passengers rakaabkii diyaaradu often have to carry waxay ahayd inay qaadaan ama ay qaataan their own luggage xamaantooda. Mother islaanta hooyo ayaa always used to prepare noo diyaarin jirtay something sweet wax macaan on Sundays maalmaha hadda. My brother walkay frequently alaba used to help me wuxuu igu saacidi jiray in my homework camal mansilkayga. Adverbs of frequency like now and then sida now iyo then oo kale oo ah mar walba now and again iyo yani ku noqnood ama again and again oo kale yani marba marka dambaysa every day oo kale twice a month laba goor bishii once mar twice etc iyo xilmada are usually alaba place waxa la dhigayaa at the end of a sentence jumlada dhamaadkeeda ku aad aragto. The bus to Lawrence Road runs every 20 minutes mana baska u baxa Lawrence Town magaalada la yiraahdo uu socdaa saacad kasta. Spring comes only once a year gugu sanadkii mar buu dhacaa. Use dhalinyaranimadu comes but once noloshaada marun bay imanaysaa dhalinyaranimo. We have French lessons every other day maalin walba 10 Faransiis ayaanu qaadanaa. I saw a light iftiin baan ka arkay in the forest now and then imikii mar dambaba. Okay marka waxa mar kasta. They go to theater kay tagaan now and then yani mar la arkaba. She failed way dhacday again and again yani inta soo goor waxaan again and again wax sheegaysa repeatedly oo kale si celcelina. Okay madam kuyure gabadha dhacday one waxay ku guuleysatay the Nobel Prize jaayisada Nobelka twice laba goor. George Nicola goes for wuxuu u baxaa boxing practice macnaha tijaabo dhinaca feerka 3 times a week 3 goor weekii. But laakiin for emphasis haddii la adkeyn loo jeedo some of these adverbs falkaabayaasha noocaas can be shifted waxaa loo rari karaa to the front xagga hore. Twice you tried and twice you failed laba goor buu isku tijaabiyey laba goorna waa dhacay. Again and again you have been told not to be late war mar walba waxa lagu sheegi jiray oo lagugu celceliyey inaad daahin. But you haven't
cared لكن ما دنين but you haven't cared لكن ما ند دنين okay وياهي وكوري every now and then مركز تبا we heard cries of pain from the burning bushes we heard waxaan maqlaa cries qayladaan of pain xanuuna from the burning bushes ayda gubanaysa halka waxay noogu dhamaan marka kuwa la yiraahdo adverbs of frequency adverbs sheegaya tikraaran wa miraaran adverbs of duration hadad maqasho waa kuwa muddo sheegaya these adverbs falkaabayaasha noocana normally alaba kama waxay yimaadaan ama ay dhacaan at the end dhamaadka sentence okay the plane diyaaradu has been flying non-stop يعني meel kuma sii for 20 hours 20 saacadood the war dagaalka has been going on wuxuu socday since 1978 ilaa 87 ilaa hadda the new chorus ka cusubna will continue wuxuu socon doonaa till June ilaa June la gaaray inaga sii sanadka soo socda kuwaas waxaa dhaca adverbs of duration adverbs of degree kuna darajo sheegay ama extent xad bay sheegayaan ama quantity cadad these adverbs falkaabayaasha noocani كم waxay dhacaan before the adjectives sifooyinka hortood bay dhacaan oramada adverbada kale they qualify ay wax ka sheegayaan maxaa la oranayaa the tea is too hot to drink shaahu ka kulliye mid la cabo kama cabi karnay ka dhigan tahay the hall is nearly full macnaha hallku taqriiban waa buuxa he danced wuxuu u jaasay very badly suxun okay dinner cashadii is almost ready taqriiban waa diyaar enough kelmad la yiraahdo comes after markay dhacdo xaga ka dambaysa adjective sifada oramada adverb ka haday daba dhacdo qualifies waxay sifaynaysaa qualifies waxbay sifaynaysaa enough kelmad la yiraahdo comes after waxay daba dhacda the adjective sifada oramada adverb macnaha falkaabaha it qualifies you aren't good enough macnaha kuma fiicnid for the job shaqada aad uma fiicnid the house gurigu isn't large enough mana kuma weyno for all of us mid nagu filan he didn't work hard enough mana umu dadaalin sidii la arki jiray he didn't run fast enough oradka mu badin mana enough-taas waa very ka dhiganta the man is strong enough to carry this load inuu load kan qaado mana de waa xoogeed waa leey some adverbs qaarkood of degree ee darajo sheegaya sida very oo kale also qualify verbs falalka isfaan also sidoo kale in such case haduu xaalku sidaa yahay they are put before waxa la hordhigaya the main verb I rather like it masalan shay baad aragtay I rather like it aad baan u jecelahay the patient bukaanku could hardly stand macnaha isma taagi karaba I quite realize waxaan aad u aaminsanahay your difficulties dhibaatooyinka ku haysata he has just left haduu baxay she almost fell down taqriiban waa kuftayba the prisoners maxaabiist nearly escaped way fakadeen okay father abo little understands my problem in yar buu fahmaa yani ama ma fahmo naadir buu fahmaa my problems mashaakilkayga ay haysta okay use waxaan isticmaalka of certain adverbs falkaabayaal ama daraf yani cayiman oo la yaqaano only kelmad la marka la know the different uses of only balada I only saw her yesterday I saw her but I didn't talk to her ba ka dhigantay I saw her only yesterday marka taadana waxa ka dhigantay I saw her waxaan arkay as recently as yesterday shalaytadii qoyanayd laakiin shalaytaa hore aan arkay hadii only du horeyso macnaheedu waxa weyn ma la hadal I saw her yesterday only shalay oo kaliya aan arkay taas noqonaysa I saw her yesterday and not before that inta kor laakiin ma aqoon I saw only her yesterday kaligeed baan arkay taasna way I saw only her and no one else only I saw her yesterday yani I and no one else saw her anigu baan arkay qof kale ma arag weeyaan macnaheedu waa qof kale ma arag anigu baan arkay marka macnihiisu isu kala duwaya yani position ka ay dhacda macnaha uu gadiyaya only daas oo kale intiba uu ku macneeyay eegtowra waxa weeyaan yani aan arkay lama ba hadal talabaadna waxaan yani shalay oo kaliya aan arkay ama shalaytada ma arkay hadii yesterday only la yiraahdo waxaan kaliya shalay laakiin koor ma arag hadii I saw only her yesterday kaligeed baan arkay weeye iyo only I saw her yesterday
يعني qof kale ma aragaan un baa shalay arkay iyada. Okay, way marka xalqadeeni 12aad ee buuggeena Mega Book of Modern English Grammar halkaas aynu jooga caawa waa macallin Nuur Ismaaciil Xirsi oo idinku dhaafaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. iyo xalqadeena 13aad oo ka bilaabmi doonta bogga 131 halka ay ku taalo 33.2 halka ay ku taalo ayaynu ka bilaabi doonaa fairly iyo rather. waa xalqadeena soo socota. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Okay, oo inooga bilaabmi doonaa bogga 131 halka ay ku taalo 33.2 oo ka bilaabmaya fairly iyo rather. fairly waxoogaa, rather labadu waa adverbs of degree darajay sheegayaan. fairly kelmadda la yidhaahdo is used before waxaa la hordhigayaa adverbs falkaabayaasha and adjectives iyo sifooyinka when the person is marka dadka or things ama ashyaada refer to la tilmaamaya are considered loo haysto desirable qaar yacni مثلا oo kale la door bidi karo ama la caashaqi karo. Okay, it's a fairly easy question. waa su-aal aada isaga fudud, waxoogaa iska fudud. The sky samadu is fairly clear, waxoogaa waa saafi. His speech khudbadiisu was fairly well received, si fiican baa loo fahmay. Rather kelmad is used waxaa la isticmaalayaa when the person is marka dadka or things ama ashyaada are considered loo arko undesirable, qaar aan la soo dhoweyn ama aan la jeclaysan. The question paper was rather difficult, waxoogaa waa adkayd. It's rather a silly answer, run ahaan waa jawaab xun oo qariban. You have damaged the book rather badly, wallahi buuggii waxoogaa aad baad wax u yeeshay. Often the use of fairly and rather, often inta badan the use isticmaalka of fairly and rather depends on waxay ku xidhan tahay the speaker's attitude, sida uu u fikirayo qofka hadlaya. hadduu dee wanaag u fikirayana wanaag bay noqonaysaa, haddii kalena dhinac kale. She is fairly slim, waxoogaa waa dhuuban tahay. You could marry her, waa iska gursan kartaa, taasi waa favorable, yani waa wax la soo dhoweeyo ama la jeclaysto. Laakiin she is rather slim markaad tiraahdo I don't think I could marry her, taasi waa unfavorable, yani mid aan maslaxadaada ku fiicnayn. Sometimes marka qaarkood rather kelmad la dhaho is used for waxa la isticmaalaya positive or a pleasant idea, fikrad yani dadka raali gelisa ama positive oo ijaabiya also sidoo kale. It's rather a good film. It is rather a good film. waa film waxoogaa iska wanaagsan. You should go and see it. waa iska soo daawan kartaa. Rather kelmad la is almost equal, waxay la mid tahay to very, kelmadda very la dhahdo. Rather kelmad la is also used waxaa lala isticmaali karaa with comparatives, laba shay marka la miisaamayo. The patient bukaankii is rather better today, sidii hore uu ka soo reeyay. A little ama slightly bay noqonaysaa, waxoogaa waa ka soo reeyay. Ago iyo beforena bal u fiirsan macne ahaan. Ago kelmad la is used for waxaa loo isticmaalaa the period of time, zaman min alwaqt, before the present moment, oo ka horeeyay before the present moment, laxdadan maanta. I returned from London baan ka soo laabtay a month ago, bil ka hor. I.e. that means ta macnaheed waxa weeye a month from, bil baa laga joogaa from the day maalintii. The speaker, ninka speaker talks about it uu ka hadlayo. Before kelmad la is used waxaa la isticmaalaya to refer to inay tilmaanto time waqti in the past beri hore ah or ama in the future mustaqbal ah. Okay, waxaad oran kartaa masalan today is 20th March, maanta waa 20kii Maarso. I saw her only a week ago, wallahi usbuuc kaliya ka hor baan arkayba. Yeah, I hadn't met her before, lama kulmin before maanta ka hor. Here before kelmad la refers to waxay tilmaamsada time waqtiga earlier ka horeeyay 13th of March. way confusion waa isku qaladka ka dhaca bidun adverbs and adjectives, sifooyinka iyo falkaabayaasha. There are a large number tira badan of adjectives or sifooyina which are used or loo isticmaali karaa as adverbs, also sidoo kale without change of form, iyadoon shakligooda ama qaabkooda wax isbedeli haba yaraatee ku iman. oo tulo waa kuwii hard baa ka mid ah, long baa ka mid ah. It was a long journey, safar dheer bay ahayd, marka journey bay sifaynaysaa long. The doctor didn't stay long, muddo dheer ma joogin, oo lama joogin with the patient, taas markaa stay long waa muddo dheer joog. Other such words are kuwa kale waxay noqonayaan ee la midkee sidaa loo isticmaali karayaa high sare, low
يعني hoose near dhow fast dheeraynaya half nus deep far hard adag early late wadaahay much badan leisurely firaaqa leh kindly naxariis leh daily maalin walba weekly waa week kasta fast straight qumaati ah nightly habeen walba yearly sanad kasta okay way markaas yani okay waxa weeyaan taasina homely yani ee beledka ama dalka only kaliya enough kufla near iyo hard waxaan odhan karaa markaad deerisan hourly bus waxa bus saacad la hourly bus service from here to the beach the news worker is broadcast waxa loo baahiyaa hourly saacad kasta I have sent you under my yearly subscription qaarankayga sanadla ahaa to the magazine majalladan u diray the magazine majalladan is published waxa loo daabacay yearly sanawiyan fast kelmada la dhaha I will travel waxaan ku safri doonaa by a fast train dheeraynaya don't move fast aad ha u dhaqaajin half kelmada la dhaha we will reach there in half an hour nus saacanu halkaa ku gaadhi doonaa iyo the meat is only half cooked hilibka nus yani ma bislo waa barqaydin far okay there is a boat on the far bank of the river there is a boat dooni baa taagan on the far bank qarka fog of the river webiga taas waa adjective for far bank iyo they didn't go far may fogaan did you go far miyaad fogaatay brother air loo fiirso he came by an early train wuxuu soo raacay tareen goor hore ah iyo mother who gets up waxay kacday early goor hore much abru fiirso there isn't much food cunto badan kuma jirto in the kitchen madbaxa iyo he hasn't eaten ma cunin much wax badan waa leisurely waa firaaqa leh the woman gabadhi walked waxay socotay at a leisurely pace tallaabo firaaqa ka muuqato tallaabo ama socod firaaqa ka muuqato there is no hurry degdeg ma jiro let us work aan u shaqayno leisurely si firaaqa leh kindly waa raxmad leh the old gentleman spoke wuxuu noola hadlay to us anaga in a kindly manner hab naxariis leh iyo speak kindly to the poor fuqarada had iyo jeer waxaad ula hadashaa si naxariis leh straight waa qumaati draw waxaad sawirtaa a straight line toosan draw sawir a straight line qumaati ah iyo look straight war qumaati ay hortaada uun okay only he is the only son of his parents isagu waa inanka kaliya qofka kaliya wiilka kaliya ee waalidkii I have met him only once ninka isaga marun baan arkay enough kalmada la rabo fiirso enough wuxuu ku markaas there isn't enough space war meel banaan oo nagu filan ma jirto here halkan for all dhammaanteen he is rich enough wa taajir to be able to help you karaya inuu ku saacido some of these words can also be used waxa loo isticmaali karaa as adverbs go with ly wata but laakiin with more or less change of meaning habadnaataa ma hayratay isbedel macnaha abaa ku dhacaya okay these words are highly iyo deeply iyo nearly hardly lately etc wixii lamid ah but the high fiirso the temperature today is very high temperature maanta uu sareeyaa iyo we must aim high waa in macnaha qastiya noqda qaar darajo sare doonay you can't use highly here okay highly marka maxay noqonaysaa he has got a highly paid job and he has got wuxuu helay a highly paid job shaqa mushaarkeedu sareeyo the principal maamuli speaks wuxuu hadlaa highly macnaha si heer sare buu kaaga hadlaa fiyo xagaaga deep the Nile webiga Nile is very deep waa mid camiiqa iyo the villagers dadkii xaafadu dhag deep hoos bay u qodeen for water biyo daraadeed deeply laakiin maxay noqonaysaa she loves you waxay ku jeceshay deeply si qoto dheer near waa wax dhow my house gurigaygu is quite near aad buu dhow yahay iyo soon markiiba the car baabuurka came near waa soo dhawaaday nearly laakiin almost way taqriiban he nearly fell into the river webigaabu ku dhici gaadhay nearly marna waxaan closely si aad ugu dhow okay the cat and the tiger shabeerka are nearly related taqriiban xidhiidh bay leeyihiin hard it was a hard job shaqa ku adag bay ahayd for the young boys wiilasha dhalinyarada ah ama inamada dhalinyarta ah iyo the boy inankii worked hard uu dadaalay he hit him hard aad buu garaacay laakiin hard waxay noqonaysaa dirqi hardly kelmadda la dhahay used waxaa lagu isticmaalaa in a negative sense macna yani negative oo kale ah it is chiefly used with waxa la raaciyaa any oo kale and ever and with the verb can
ficilka kana way raacdaa jeer. We have hardly eaten anything today. Maanta haba yaraato waxa manaa cunin buu yiri. The patient can hardly stand. Bukaanku dirqiis ma taagi karo. He hardly ever goes to office these days. يعني نادر buu gaadha ama maba tago xafiiska maalmahan. Ladaleedu fiirso, you are again late. Warniyo mar labaad waa daahday habsaantay. Laakiin the plane diyaaradda arrived waxay timi late goor dambe because of heavy fog. Ceeryaan faraweyn daraadeed. Lately laakiin waa baryahan dambe. Recently bay la macantay. We haven't seen him maanaan arag. We haven't seen him maanaan arag lately baryahan dambe. Most balo fiirso. Most people dadka badankoodu waxay jecel yihiin sweets macmacaanka. Most mar labaadka of all those present. يعني dhammaan dadka meesha ka soo xadiray George ninka la ayaa aid cunay most inta ugu badan. Laakiin mostly maxay noqonaysaa for the most part inta badan ama alaaba ama generally ama mainly. He is mostly ill. Alaaba waa bukaa. Some fabs falalka qaarkood like smell sida smell oo kale ama to taste inaad dhadhamiso ama to feel ama to look ama to appear inaad u muuqato and to be are followed waxa daba dhacaya by adjectives sifooyin and other fabs falkaabayaal ma daba dhacayaan. A rose ubaxa casi smells wuxuu uraa sweet yani wax udgoon wanaagsan. This medicine dawadan taste waxay dhadhamaysaa bitter qadhaadh. I feel cold waxaan noqday mid dhaxmoonaya. You look fine waxaad u egtahay nin qurux badan. He appears wuxuu u eg yahay macnaha sad nin murugaysan. Are you feeling hot? Miyaad gubanaysaa? Are you feeling hot? Miyaad gubanaysaa? Yani makuleel baa ku haya bay ka dhigan tahay. Okay. Wuxuu ku yidhi some words erayada qaarkood oo ending ku dhamaanaya in ly ku dhamaanaya are used ayaa loo isticmaali karaa as adjectives only sifooyinun. maxaa ka mid ah friendly saaxiibtinimo leh, unfriendly manaa cadowa, mainly alaaba, motherly hooyanimo leh, fatherly aabba ah, brotherly walaalaah. Okay, heavenly samaawi ah, masterly sayid ah, soldierly askarinimo ah, scholarly tacliini ka muuqato, lovely qurux badan, lonely keli ah iyo likely u eegama suurtagala. He gave me wuxuu macnaha isiiyey a friendly smile dhoolla caddayn saaxiibtinimo ka muuqato. We cannot say ma odhan karno she behaved friendly. We could say waxaan odhanaa she behaved waxay u macaamishay in a friendly manner. hab yani ay ku jirto saaxiibtinimo. marka layliska dhammaantii waad ka soo shaqayn doontaa haddii eebba yidhaahdo. tusaale ku siinaya mid kastana tusaale ayaad raacaysaa. wana casharkii aynu hadda soo marnay dhammaantood. marka chapterka cusub intaynaan bilaabin ee prepositionska waxaan jeclaan lahaa inaan xalqadaa yar ee kooban halkaa ku dhaafo. marka waa xalqadeennii 13aad ee buuggeenna Mega Book of Modern English Grammar oo caawa halkaa inoo joogi doonta. waa Macallin Nuur oo idinku dhaafaya. asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.